قبس كالغيث المدرار نقطف من كل الأزهار وبنهج الغر الأطهار نسلك درب العلم ونعمل قبس كالغيث المدرار نقطف من كل الأزهار وبنهج الغر iyo wanaagooda iyo ixsaankooda waxa uu marinaya imaam muslim rahimahu allah ta'ala nabigu alayhi salatu wasalaam markii uu baxay fath makka inuu soo maray mantiqatul abwa waxa weeye meel makka iyo madiina u dhaxaysa xagga makana u dhow oo ay ku duugan tahay ama ku aasan tahay nabigu alayhi salatu wasalaam hooyadiis meesha ku dhimatay weey halka markuu marayay ayuu nabigu alayhi salatu wasalaam wuxuu ka haystay kun asxaabtiisa kamida oo ciidankiisa kamida ciidan 10 kun oo la socday kun min oo kamida ayaa raacday nabiga alayhi salatu wasalaam wuxuu tagay qabriga hooyadiis uu ku dul ooyay oo hin aad u dheer ayuu nabigu alayhi salatu wasalaam waxa badan ooyay ayaa asxaabtiisina ooysay ridwanullahi alayhi markaasuu wuxuu ku yiri ilaahay subxaanahu wa ta'ala ayaa waxaan weydiistay qabriga hooyaday inaan soo ziyaarto una ii ogolaad soo nabigu alayhi salaatu wasalaam weynay waxaan kala weydiistay inaan u istighfaar dalbo maadaama gaalnimo ku dhimatay in aan istighfaar ilaahay u weydiiyo dambi dhaaf weydiiyo taasna waa la ii diiday nabiga alayhi salaatu wasalaam maqaamka hooyo ka joogta halkaas